magaalada Garowe haddaan eegnana dhaqaatiir Soomaaliyeed ayaa ka dayrinaya xaaladda caafimaad ee gabar 6 jir ah oo la yiraahdo Sawdo Cabdi Aadan oo la sheegay in xanuunkeedu uu yahay mid culus oo aan dalka waxba looga qaban karin. gabadhan yar ayaa la sheegay in dhaqaatiir kala duwan oo loo geeyay ay waxba ka qaban waayeen xaaladdeeda caafimaad iyada oo ka soo jeeda qoys sabool ah oo Soomaaliyeed. wariyaha TV-ga Universal Umar Maxamed Soomane ayaa booqday xero dadka barakacay ay ku nool yihiin oo ay gabadhani ku nooshahay oo ku yaala duleedka magaalada Garowe. warbixintan ayuuna soo diray. TV-ga Universal ayaa isku dayay inuu booqdo kaamka barakaca ee gabadha xanuunsanaysa ay ku nooshahay, waxaana halkaasi aan kula kulannay Suuban Aadan Isaaq oo ah hooyada dhashay gabadha xanuunsanaysa. ilba kusoo dhalay ilba saas kusoo naqatay idoo 2 jir tahay Garowe la imaaday. Garowe daawadi lagu sii unna waadan yareen waxna ma haysanin. Garowe daawadi lagu siina waa karwaysay xamar la aadnay xamarna wax qabadka waa iska yaraay meel walba anigay daawadi ku soo qaaday daawadi waa karwaysay ilaa 4 sano meesha 2 sano meesha la soo joogay waa la soo tagay halkana imaaday aabaheedana waxba ma haysanin waa dan yar yahay. Ibrahim Muuse Wadani iyo Cali Cabdi Ducaale waxay ka mid yihiin wariyaasha ku sugan magaalada Garowe, waxaana ay si gaar ah ay xil isaga saareen in bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan ay u gudbiyaan xogaha nolosha iyo xaaladda caafimaadka qoyska gabadha ay ka xanuunsanayso. waxaan ummadda islaamka ka codsanaynaa meel kasta oo ay joogaan in gabadhani ay wax u qabtaan oo ay wax u taraan oo ay waxay u baahan tahay u soo diraan qofkii wax weeye dareen ahaan uu dareemi karaa qof kasto waalida maanta xanuunka ay qoyskan ku jiraan waa dareemi kartaan noloshay ku nool yihiin iyo cudurka mucjisada ah uu Ilaahay gabadhooda kaga riday. waxaan Ilaahay ka codsanaynaa inuu caafimaad siiyo gabadhan, idinkana waxaan ka codsanaynaa Ilaahay dartiis inaa gabadhan masaakiinta ugu soo adeegtaan. dalka xol looguma qaban karo, waxa wax looga qaban kara dibadda. waxay u baahan tahay wax dadka muslimiinta wax gacantooda ku jira. wuxuu adiga ku dhiibay buu dadkan Ilaahay ka qaaday, caafimaad buu adiga ku dhiibay dadkan caafimaadka Ilaahay waa ka qaaday, hanti buu Ilaahay adiga ku dhiibay dadkan hantida Ilaahay waa ka qaaday. runtii gabadhan akoonno ayaan uga furnay Dahabshiil iyo Amal iyo akoon gudaha oo sahla. marka dadka doonaya inay gabadhan soo caawiyaan waxay tagi karaan Dahabshiil iyo Amal. waxa akoonka ugu qoran Sawdo Cabdi Aadan, waa gabadh dhalinyaro ah mustaqbalkeeda aan badbaadino. waxaan kaloo mahad celinayaa Universal TV oo iyadu xilligan subaxnimadii hore nala joogta kaamka ay ku jirtay gabadhan iyo waalidkeed. gabadhan waxay u baahan tahay caafimaad, waxay u baahan tahay daryeel, waxay u baahan tahay mustaqbal. gudoomiyaha hay'adda Alpha Trust Daahir Cali Kulmiye oo ku sugan magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa deeq lacageed u soo diray qoyska gabadhan xanuunsanaysa, waxaana hay'adda Alpha Trust ay ballan qaaday inay bixin doonto guud ahaanba dhaqaalaha ku bixi doona haddii ay suuragal noqoto in gudaha dalka qalin loogu sameeyo gabadha xanuunsanaysa. hayeeshee qoyska Sawdo Cabdi Aadan waxay horaantii sanadii 2011 ay ka soo barakaceen deegaan lagu magacaabo Maduulow oo u dhow degmada Qoryoole ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyadoo ay jiraan dhibaatooyin cuduro iyo xaalado dhanka nolosha ah oo haysta dadka nugul ee ku nool xeryaha dadka soo barakacay ee ku yaala gudaha Puntland. Umar Maxamed Soomane, Universal TV, Garowe.